muuqaalkani daawaday waa caasimadda dalka Jabuuti. waa magaalo xudun u ah ganacsiga geeska Afrika. magaaladan ayaa sanadadii ugu dambeeyay waxa ka tis qaaday horumar la taaban karo. horumarka iyo nabadda waxa jeexay oo saldhig u ahaa halgamayaashii waaweynaa sida Allaha u naxariistay madaxweynihii hore dalka Jabuuti Xasan Guuleed Abtidoon, Maxamuud Xarbi iyo qaar kale oo badan, kuwaas oo waqti badan geliyay sidii loo heli lahaa dalka horumaray dhinac walba. dadka qaarkood wuxuu yidhaa waxba lama qaban. annagu waxaanu soo maray 2 iskool oo kale wax kaliba haba yaraatay ma jirin. maantana miyiga magaalo iskoolaha ka samaysan, dhakhtarraha ka samaysan, kolka hal si ballaadhiyadiina macnay dooni waa ina faranku halka uu galayo aad wax ka ogaan kartiin. waa daw waxba qarsan kara meenne. waxa kale oo idin sheegayaa dhibaataa jirta. dhibaatadaas dhibaato annagu aan ku talagalnay ma ahayn dhibaato nala damcay weeye. dhibaato dad idin isku soo raacay weeye. ma diidani kabirta sita ee raganimada ku hadlaya ma diidani, laakiin waxaan jecelahay waxa weeye inaan dadka waddanka aan wada hadallo wuxuu leeyahay dacwadna aan qaadno sidii aan wax u dhisaysan aan ku wada hadallo. hadalladaana dadka qaarkood waxay leeyihiin ma wada hadli karayaan. waanu wada hadlaynaa oo waxaan ku wada hadlaynaa Jabuuti ahaan, shicib ahaan, waddani ahaan baan ku hadlaynaa. faqad waxaan diiday waxa weeye miyaa la soo kiraysan karayaa nin 100 kiiloomitir inaga jira hadduu yidhaah talada anaa qaadanaya ma ina daweyn karaysaa? waa maya. kolkaa waxaan rabaa waxa weeyaan kuwaas inay isaga baxaan. ha ka baxaan, annakaa isku caddaanayno oo wixii dana isweydiinayna. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si toos u raacay tubtii ay jeexeen halgamayaashii isaga ka horreeyay. taasi waxay keentay in lagu tallaabsado horumar soo jiitay ganacsiga iyo maalgashiga ee dowladaha caalamka. haddaba waa kuma hogaamiyaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle? madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu dhashay 27 bishii Noofembar sanadii 1947. waxa uu waxbarashadiisa kala duwan ku soo qaatay dalka Jabuuti iyo qaar ka mid ah wadamada dibadda. intii aanu hogaaminta dalka qaban madaxweyne Geelle waxa uu muddo badan soo ahaa agaasimihii madaxtooyada ee dalka Jabuuti ee u igmanaan nabadaynta iyo soo afjaridda colaadihii sokeeye. mudane Geelle waxa uu dadaal iyo tacab badan geliyey sidii loo heli lahaa dal nabdoon oo khayraadkiisa loo siman yahay. waxaanu ugu dambayntii ku guulaystay 26 bishii Diseembar sanadkii 1994 inuu soo afjaro colaadihii sokeeye, heshiis rasmiyana ay kala saxeexdaan jabhadihii iyo xukuumaddii wakhtigaasi talada dalka haysay. waxayse nagu tahay waajib in aan idin sheegno waxyaalada waddankeennu uu marayo. abtidaasi xeerka duud ama dastuurka bandhigaysa, hirgelinaysa biidni illaah. kolka aad inigu kalsoonidiinna siisaan waxa uu ka kooban yahay, sida uu faa'iidada inoogu leeyahay, sida uu waddankeenna xeerkiisa u meel marinayo ama mustaqbalkiisa dhinac dhaqaale, dhinac siyaasadeed iyo dhinac bulsho intaba ayaan u nimidnay inaan idinka warranno waxa laynaga filayo
inta dagaalka jarhadda ugu jirta innaguna waajib kale ayaa ina saaran maanta dalku inoo yeedhayaa wax alla wixii qaangaadha inoogu yeedhayaa waajibkaasi sidii aan u meel marin lahayn xeerka waaraaga ah ee waddankeennu ku dhaqmi doono waajib ayay ku tahay nin kasti oo waddani ah gaar ahaan waxay waajib ku tahay dal jecele ayay waajib ku tahay ninka dalkiisa jecel ninka heegan u ah ninka mukhlis u ah dalkiisa iyo diintiisa maanta waa inuu ku muujiyaa jawaabta haa odhanaysa labada su'aaloodba waxaan jeclahay inaan xoogaa idinka sheego culaysyada ama cadaadiska dhinac walba nagaga imanaya si aanan luga ugu joogsanin si aan waddankeenna nabad aanan ugu soo dabaalin sida aan dad is-oggol oo malaystay oo malahooga ku meel maraya si aanan u noqon culaysyadu ama cadaadisyadu dhinac kastiba ama nooc kastiba way leeyihiin intaa waxaa la hororsanayaa la diidan yahay in aan malaheennii maskaxdeenna ka yimiday aan ku meel marno cid aan xeerkaasi hadduu hirgalo cid aan annagu ku dhibayno ama cid ay dhibaysaa annaga nooma muuqato dantii dalkayaga ayaan u aragnaa haddana mar kastiba dagaal iyo cadaadisyo iyo fidnad ayaa la wadaa si qas la noo geliyo dib la nooga celiyo noo maleeya aan nidhaahno aan ishoos dhigno dad aan ka xorownay maya ayaan leenahay waxa aan leenahay xeerkeennaas biidni illaah bicawni illaah waan hirgelin doonnaa awoodda shacbigeenna ayaan ku hirgelinaynaa nabad baan ku hirgelinaynaa innaga oo dhan baa ka hortagi doonna kuwa moodaya inay naga cabsiinayaan annaga shacbigeennu uwaddiisa ayaan ku meel maraynaa waa la inagu qaldamayaa marka la damacsan yahay in lana kala kaxkaxeeyo waxa waajib inagu ah inaan innaga oo mida marxaladdaa maanta adag eenan annagu doonanin ee gardarro lanagu geliyey aan kaga baxno midnimadii inoo caadada ahayd aan ka guulaysanno cadowga kuu doonay ha noqdee dadkeennu waxa uu ku caanbaxay gobolkani east africa inuu yahay dad soo jeeda dad dal jecel dad jecel dad jiiraan jecel dad horumarka dadka kale la doonaya dad aanan xaasid ahayn dad xuquuqda dadka kale u oggol sidaas inaan ku sii adkaysanno oon xooggeenna aan dadweynaha dalalka kale maanta aan nidhaahno dibindaabyadaana waan ka badbaadnay aan nidhaahno berritole bisha 5teeda ay dadweynahoo dunidoo dhan ay arkaan in aan aqlabiyad weyn oo cidna ka daba hadli karin in aan haa ku wada nidhaahno aanu qofna naga hadhin walaalayaal dadaalka iyo juhdiga badan ee uu geliyey madaxweyne geelle nabadaynta dalka iyo soo afjaridda colaadihii sokeeye waxay noqdeen kuwa soo jiita qulubta shacabka reer Jabuuti waxaana arrimahaasi oo dhami ay muujiyeen kartida iyo hogaaminta madaxweyne geelle sidaasi daraaddeed waxaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle loo doortay inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga RBB sanadkii 1997 2 sano kadib mudane Ismaaciil Cumar Geelle
ayaa xisbiga RBB u doorteen inuu noqdo murashaxa xisbiga u tartamaya doorashada madaxtinimo ee waddanka Jabuuti. sanadkii 1999 waxaa shacbiga Jabuuti ay u darareen doorashadii ay ku dooranayeen ciddii hogaamin lahayd dalka, waxaana doorashadaasi ku loolamaya Ismaaciil Cumar Geelle iyo Muuse Axmed Idris. doorashada waxaa si aqlabiyad leh ugu guuleystay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. toddobaadyo kadib waxa uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle loo dhaariyay hogaaminta waddanka Jabuuti, waxaanu xilkaasi kala wareegay allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee dalka Jabuuti Xasan Guuleed Abtidoon. madaxweyne Geelle markii uu hogaaminta dalka la wareegay waxa waddanka ka jiray shaqo la'aan baahsan iyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada oo hooseeyay. khudbaddii ugu horreysay ee uu jeediyey madaxweyne Geelle shacabka reer Jabuuti waxa uu si cad ugu qeexay qorshayaashiisa siyaasadeed ee ku aadan wax ka qabashada arrimaha bulshada sida caafimaadka, biyaha, waxbarashada iyo adeegyada kale ee lagama maarmaanka u ah bulshada reer Jabuuti. sidoo kale madaxweyne Geelle waxa uu jeexay siyaasad tolmoon oo lagu hagayo maalgashiga iyo horumarka dalka Jabuuti. waxa ay arrintani keentay in indhaha caalamku ay u soo jeestaan sidii maalgashi ay ugu samayn lahaayeen waddanka Jabuuti. dhinaca amniga, waxyaabihii ugu horreeyay ee awoodda la saaray waxaa ka mid ahaa xoojinta ammaanka guud iyo tayeynta ciidamada kala duwan, waxaana uu aasaasay madaxweyne Geelle sanadkii 2002 ciidanka madaxtooyada oo laga soo xulay ciidanka qaranka iyo ciidanka jandaaranka iyo weliba booliiska intooda ugu tayada fiicnayd. dhinaca caafimaadka, dhinaca arrimaha bulshada haddii aynu diradda saarno waxyaabihii ay ka qabatay xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelle, aynu eegno dhinaca caafimaadka. 5 gobol iyo weliba degmooyinka hoos yimaada ee dalka Jabuuti waxaa laga hirgeliyey cisbitaal la buuxiyey baahidii dhanka caafimaadka ee bulshada, iyadoo sidoo kalena dib u habeyn lagu sameeyey xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee ku yaalla iyaguna isla magaalooyinka waaweyn iyo deegaanada dalka Jabuuti. waxaa tusaale muuqda u ah tayada caafimaadka ee Jabuuti sida ay u buuxisay baahida adeegyada caafimaadka. dhanka waxbarashada, waxaa kor loo qaaday waxbarashada aasaasiga iyo ta sare ee waddanka Jabuuti, iyadoo dhammaanba waxbarashada dawliga gaar ahaanna dugsiyada hoose dhexe sare iyo jaamacadaha dalku ay yihiin kuwa lagu dhigto lacag la'aan, taasi oo saamaxday in bulshada qaybaheeda kala duwani ay helaan waxbarasho ay u siman yihiin
dabaqadaha kala duwan ee bulshadu. waxaa kaloo la hiirgeliyey goob ay wax ku bartaan dadka laxaadka naafada ka ahi. dhinaca tacliinta sare waxaa markii ugu horreysay la bineeyey jaamacadda culumta ee tacliinta sare. madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu ka hadlayay xafladda furitaanka jaamacadda jabuuti ayaa si mugle u sharaxay muhiimadda ay tacliinta sare u leedahay guud ahaan bulshada. farxadda aan dareemayo oonan xad lahayn maanta wixii aan ku soo daalnay wixii aan lahayn dhaqaalena aan u furnay caruurteenna inaan ka saarno jahliga, caruurteenna inaan u oggolaanno dhammaantood ka hodanka ah iyo ka faqiirka ah labaduba ay maskaxdooda dadaalkooga ay ku meel maraan oon ku siino waddankooga ku siino fursad ay maskaxdooda ku beeraan, ku kobciyaan, hore ugu mariyaan, wax ugu taraan dalka iyo iyaga iyo dadkooga. waxa aan ku dadaalaynay waxa weeye ama aan ku dadaalaynay waxa weeye inay noqoto jaamacad yani la jaanqaada adduunka, jaamacad ka jawaabta baahida adduunka jira, ka jawaabta casriga la joogo, la jaanqaada dhalinta adduunka jira, kuwa ugu sarreeya, kuwa ugu hodansan, inaan ficil ku geyno halka aan doonayno ilaahayna uu nala qabto. waxa aan doonaynaa inaan tusno inaan cilmiga hanan karno, inaan aqoonta hanan karno, in aan tusi karno waxa aan tarayno een u tarayno dadkeenna iyo adduunkaba. maanta ayaamaha kale way nooga duwan tahay, maanta anigana way iga duwan tahay. maxaa yeelay wax dee lanala yaabi jiray ama la quurhsan jiray ama lanoo diidayey kaba soo qaad kuba soo dartaana oo ahayd in aan xagga maskaxda ku xorowno ayaan dhiirigelin aan ka helnay dadkeenna iyo madax adaygaan iskaga dhalanayba. waxa aan ku daynay albaabkaa hala furaan nidhi. caruurtayadii oo dunida ka dhacday, dumarkii oo caydhoobay, oo masruufkii caruurtii ay u furayaan marka aan aragnay ayaan nidhi bal wixii la badbaadin kara ha la badbaadiyo, annaguna baddaasaan ku dhacaynaa, caruurteennana waan ka soo qabanaynaa. ilaahay baa noo suuro geliyey walxamdu lilah. brofesorada, ardayda, maamulka jaamacadda horta waan hambalyeynaya shaqada wanaagsan ee la qabtay. waxaanan ku guubaabinayaa inay ku fara adeegaan jaamacaddooda, in ay dhowrtaan qalabkooda, in ay ka faa'iidaystaan hawsha iyo cilmiga halkaa lagu bixinayo, in ay tusaan dadweynaha iyo waalidkooga inay tusaan in wixii ay u qalmiyeen alla siiyey in aynan ka faa'iidaysanayaan una faa'iideynayaan dalka. waxaan leeyahay jamhuuriyadda jabuuti ha noolaato, jaamacaddeenu ha adkaato oo ha korto oo horey ha u socoto. waxaa kaloo uu hirgeliyey madaxweyne ismaaciil cumar geelle isaga oo tudhaale iyo lexjeclo weyn u haya mashruucii horumarinta afka hooye ee af soomaaliga. afkaaga hooyo hadduu kaa lumo intaasoo dhan way kaa lumaysaa. intaasi markay kaa luntana ma noqonaysid wax jira, ma yeelanaysid jiritaan sharaf leh, ma helaysid wax aad ku faanto, wax aad kula tartanto ummadaha dhigaaga ah
iyagu ku fara adeegay afkoogii iyo aqoontii uu xambaarsanaa. ubadkaaga iyo ubadkoodu waxay noqonayaan hayblaawayaal habow ah, dalanbaabi aan lahayn wax lagu aqoonsado ama carte d'identité iyo wax lagu qiimeeyo. waxay ku noolaanayaan cuqdad isyasid ah ayay ku noolaanayaan. halkan ayuu ku jiraa qiimaha aan la koobi karin ee uu leeyahay afka hooyo. waa sida ahaan sababta axdiga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha qodobadiisa qodob ka mid a lagu qoray ilaalinta afka hooyo inuu yahay xaq ka mid a xuquuqda lama taabtaanka ah ee ay leeyihiin qolo kasti iyo qof kasta. waa sababta qaramada midoobay ay hay-adooda UNESCO la yidhaahdo ay sanadkii 1999 u bilaabeen qayladhaan ay ku baaqeen in la badbaadiyo afafka hooyo ee halista ku jira. waa xilligii la go'aamiyey in la caleemo saaro maalin loo aqoonsado maalinta caalamiga ah ee afka hooyo. waa munaasabadda aynu maanta u dabaaldegeen. waxaa cilmi baadhis lagu ogaaday in 50 sano gudahood ay dhiman doonaan 50% luqadaha adduunka ka jira. waxaa la ogaaday 2 toddobaad ba inuu dhinto af soo jireen. afkii dhintaana wuxuu la dhimanayaa dhaxal aqooneed iyo oo aan meel kale laga heli karin. waxa aan dadaalkeenna aan ku wadnay waxay ahayd in aan dhiiri gelino in afafka hooyo dadku ay bartaan. xukuumadda madaxweyne geelle iyadoo ka duulaysa baahida loo qabo koraanka iyo biyo ku filan inay helaan shacabka reer Jabuuti waxay heshiisyo la gashay dalka ay jaarka yihiin ee Itoobiya. heshiisyadaasi midhihii ka dhashay ayaa wax weyn ka bedelay baahidii bulshadu ay u qabtay inay helaan koraan iyo biyo ku filan. guulaha kale ee la gaadhay muddadii uu hoggaanka hayay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaa ka mid ahaa oo wax laga qabtay dekedaha lafdhabarta u ah ganacsiga geeska iyadoo la dhisay dekedo caalami ah kuwaas oo ka dhigay Jabuuti xudunta ganacsiga. waxaa kale oo horumar la taaban karo laga gaadhay dhinaca isgaadhsiinta iyo weliba tiknoolajiyadda. waxaa maanta dalka Jabuuti ka hanan qaaday 7 xadhig oo kuwa badda hoostooda mara qaadana internet xawaarihiisu sarreeyo. xadhkahaasi waxa ay Jabuuti iyo wadamada jaarka ahba ay ka haqabtireen baahidii isgaadhsiinta casriga. horumarka kale aan indhaha laga qarsan karin ee la hirgeliyay muddadii uu talada dalka hayay Ismaaciil Cumar Geelle waxaa ka mid ah in la sameeyay tareen isku xidha dalka Jabuuti iyo weliba dalka ay deriska yihiin ee Itoobiya kaasi oo wax weyn ka bedelay isu socodka labada dhinac iyo weliba ganacsiga dalka Jabuuti. intaasi daawadayaal waxaanu ku soo gabagabeynaynaa qayb ka mid ah waxqabadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.